complex numbers. maanta waxaan qaadanaynaa haddii uu rabbi idmo cashirka sideedaad waxaa la yiraahdaa waa multiplication and division of two complex numbers in polar form. marka waa isku dhufashada iyo isu qaybinta laba complex number ee u qoran in polar form. marka halkan waxaan ka garanaynaa complex numberka aan isku dhufanayno ama isu qaybinayno waxaa qasab ah marka kan inuu yahay polar form ayaa qasab ah. marka waxaa laga yaabaa inaan isweydiino complex number u qoran standard form sidee looga dhigi karaa polar form. marka tusaale ayaa halkan inoogu qoran, tusaalahan ayaan bal isku xasuusinaynaa haddii uu rabbi idmo. tusaalaha kan wuxuu ina leeyahay complex numberkan aad haysato marka hore polar form u bedel. haddii aan polar form u bedelayno marka hore waxaan ku qasbannahay inaan ogaano horta waaxda uu dhaco. dabcan waaxda haddii aan ka fakarno wuxuu noqon doonaa waax real axis-ka ama x axis-ka uu yahay positive, imaginary axis-kana ama y axis-ka uu yahay negative. for example 2 point something on x axis halkaas oo kale ah, y axis kana uu negative 2 yahay. marka waaxda afraad ay noqonay haddii ay tan tahay waaxda koowaad, midda tan labaad ay tahay, tan saddexaad ay tahay, marka waaxda afraad ayuu complex numberka uu joogaa. marka tiitada ii soo baxda negative-keeda un baan qaadan doonaa si aan argumentigii u helo. marka hore waxaan sameynaynaa marka r ama moduluskii ayaan helaynaa oo aan ku helayno square root of 2 square root okay 3 minus 2i. marka haddii aan sii wadno wuxuu inoo noqon doonaa marka square root of x square. marka x maanta waxaan haysanaa 2 square root 3 ayaan haysanaa. that part waan square garaynaynaa plus y waxaan haysanaa isna 2 isna waan square garaynaynaa. haddii aan sii wadno 2 haddii la square gareeyo 4 ay noqonee, square root 3 haddii la square gareeyana square rootka iyo waxaa isla bixi doona square-ka 3 a meesha kasoo bixi doona, 3da soo baxda iyo 4ka isku dhici doona, halkaas waxaa kasoo bixi doona 2 iyo 10 ayay ii noqon doontaa plus 2 square waa 4 marka 16 ay noqon doontaa. 16na rootka waxay uga bixi doontaa 4 marka moduluskaygii waa 4. marka haddii aan usoo gudbo argumentiga isna inaan soo helo wuxuu ii noqon doonaa marka argument of 2 square root of 3 minus 2i equal. marka mar walba argumentigeena wuxuu ahaa inaan isticmaalno marka waaxda afraad markii la joogo tanka minus un baan banaanka dhiganaynaa. waxaan leenahay minus tan inverse over y square marka ama y waxaan haysanaa 2 divided by xna waxaan haysanaa 2 square root 3. marka intaas haddii aan bal sii kaxayno sii wadno waxay noo noqon doontaa minus tan inverse into marka 2 iyadaan isku yarayn karnaa marka 1 over root 3 ayaa ii soo baxaya. halkaana waxaa ka dhalanaysa by divided by 6 ayay ii noqonaysaa. marka by over 6 ayay ii noqonaysaa. marka polar formka hab qoraalkiisu wuxuu ii noqon doonaa marka midkii aan haysto ahaa 2 radical 3 minus 2i wuxuu ila mid noqon doonaa polar formkiisa r into cos theta plus i sin theta. okay sidaas ayuu ii noqon doonaa. marka r waan soo helnay waa 4 cos, argumentigeena waxaan soo helnay by over 6 plus i sin by over 6. marka any complex number marka aan rabno soo inoo yaalaa marka polar standard form inaan polar form ka dhigno weyga kan ama habka kan ee fudud ayaan u maraynaa. marka hadda qaybta tan ee isku dhufashada iyo isu qaybinta waxay la xiriirtaa marka waa polar formka ayay la xiriirtaa. marka halkan waxaan ku haysanaa haddii laba complex number ee kala ah z1 iyo z2 la ina weydiiyo inaan isku dhufanahay marka waxaa inoo soo bixi doona habka kan marka isku dhufashadooda. marka hore waxaan sameynaynaa this is z1 oo lagu dhufanayo z2 weeyaan. marka waxaan sameynaynaa labada r
waan isku dhufanayna marka waxay noqonaysaa r1 times r2 coskaan aan qaadanaynaa okay coska hore ah coskaas aan ku dhufanaynaa marka wuxuu noqon doonaa cos theta 1 oo ku dhufsan cos theta 2 marka saas uu noqon doonaa sidoo kale sinkaan aan qaadanaynaa isna okay sinkaan aan qaadanaynaa isna waxaan ku dhufanaynaa cos tan marka iyana waxay noqon doontaa sin theta 1 okay plus cos theta 1 dabcan si kale hadaan u dhigno marka aan isku dhufano imaginary ama real partiska markaan isku dhufano waxa ay soo bixi doona tiro real party ah imaginary partiska markaan isku dhufanana mar kale waxa ay soo bixi doona tiro kale oo iyana real party ah waxaan u leeyahay halkan waxa ku jira I halka kana waxa ku jira I marka I hadii I lagu dhuftana waxay noqon doontaa I square ay noqon doontaa marka halkaas ayaan marka ku helaynaa formula aan ku shaqeyn lahayn marka hadii aan sii wadno waxa inoo soo baxaya r1 oo lagu dhuftay r2 cos plus theta 1 plus theta 2 plus I sin theta 1 plus sin theta 2 marka complex number ka polar form ku qoran markaan isku dhufanayno formulahan aan adeegsanaynaa si kooban marka formula muxuu inoo sheegayaa wuxuu inoo sheegayaa marka hore inaan isku dhufano labadooda modulos inaan isku dhufano then labada complex number thitooyinka ay kala wataan ama xaglaha ay kala wataana aan isu geeyo ayay tilmaamaysaa marka sidaa darteed marka aan rabo inaan raadiyo argumentiga z1 oo z lagu dhufto waxaan ku helayaa labada r inaan isku dhufto baan ku helayaa argumentiga marka hadii aan rabo inaan iraahdo meeshaas moduluskooda hadii aan rabo argumentigana labada xaglood oo la isku daray ayaan ku helaynaa marka argumentiga theta koowaad complexka koowaad oo loo geeyay argumentiga complexka labaad ayaan halka ka si fudud u oran karnaa marka halkan waxaan ku haysanaa laba complex number waxa la inaga rabaa waa inaan mataqaana soo helnaa moduluskoodii aan isku dhufanaa kadibna argumentiyadoodii ayaa la inaga rabaa si aan u sameyn karno marka waxaan sameynaynaa complexyadan ayaan marka hore bedelaynaa markaan bedelno marka waxa inoo fudud inaan argumentigii iyo mataqaana soo helno ayaa inoo fudud marka hadii aan sii wadno z1 oo qaybta tan ee qaybtan hore ah dabcan halkaas aan iska xariiqda dhib malahan z1 meesha tan marka aan joogno waxaan marka hore soo helaynaa z1 waxaan soo helaynaa r1 ayaan soo helaynaa waxaan ku helaynaa square root of x square x maanta 12 aan haystaa 2 alif ayaan square gareynayaa plus y-na waxaan haystaa 5 ayaan square gareynayaa marka qaybta tan 144 ayay noqon doontaa 12 markaan square gareeyo qaybtan waxay noqon doontaa 25 markaan isu geeyana 100 waxay noqon doontaa 69 ayay noqon doontaa 169na 13 ayay root-ka uga baxaysaa marka halkaas waxaan ku haystaa marka r1 marka hadii aan rabo iyadana tiitada inaan soo helo marka hore waaxda waa inaan ogaadaa waaxda hadda waa waaxda labaad maadaama waaxda labaad aan joogana waxaan isticmaalayaa argumentigeyga okay qaybta tan argumentigeeda inuu ila ekaan doono argument of -2 alif plus 5i dabcan inuu ila mid noqon doono halkaas aniga wala yiraahday inuu ila mid noqon doono waxaan ogahay by minus tan inverse طبعا waaxda labaad la joogaa waa inaan sidaas isticmaalaa marka y over x y waxaan haystaa 5 x na waxaan haystaa 2 alif marka by minus qiimahan wixii halka ka soo baxa marka tan inversiga waxa ii soo bixi doona isaga marka aan sameeyo marka waxa ay noo soo baxaya marka aan qiimahan inversigan gelino waxay noo noqon doontaa 0.395 ay noqon doontaa marka by aan ka gooyo qiimihii ii soo baxayna ugu dambeyn waxa halkaas ii sameysmaya argumentigii koowaad argumentaha koowaadna wuxuu la ekaan doonaa 2.5 okay ama 747 saas uu noqon doonaa haddii aan complexka labaad u imaado isna wuxuu ii noqon doonaa marka inaan raadiyo r2 inaan raadiyo dabcan r2 waxaan ku helaynaa isna
square root of x square marka qaybtan x teeda waa 4 aan square garaynayna y dana waa 3 iyana 3 aan square garaynayna marka waxa ii soo baxaya 16 halkan waxay noqon doontaa 9 marka 16 iyo 9 aan isu geeyana waa 25 na rootka waxay uga bixi doontaa 5 qaybta marka waa r2 hadii aan argumentigeedii u gudbana argumentiga marka hore waa inaan xadidaa waaxda la joogo marka hadii aan isweydino waaxdan waa waaxdee waxaan ogaanaynaa waaxda inay tahay waaxda labaad maadaama x axis-ka uu negative yahay y-gana positive yahay waaxda labaad waxaan maraynaa isla qaybtii hadoo kale waxaan leenahay by minus tan inverse y over x y waxaan haystaa 3 x na 4 ayaan haystaa halkaa marka iyana waxaa ii soo baxaya marka waxaa ii soo baxaya 2.498 markaan sii kala jaro marka qiimahaas ayaa ii soo bixi doona markaa qaybta taa iyadana marka hadda way ii fududahay inaan marka hore helo si aan complex numberka argumentiga koowaad argumentiga labaad iyo waxaan samayn karaa absolute value marka qaybta hore hadii aan u gudbo qaybtan koowaad oo la iga rabo oo ah dabcan absolute value of z1 times z2 hadaan u gudbo mar walba wuxuu leeyahay r1 times r2 ayuu la ekaanayaa isaga sidaa darteed r1 waxaan soo helay r-tayda koowaad waataa markaa 3 iyo 10 ayaan soo helay r-tayda labaadna waxaan soo helay iyadana waxaan soo helay 5 markaa 3 iyo 10 marka aan 5 ku dhuftana waxay ii noqon doontaa 60 iyo 5 marka z1 lagu dhuftay z2 marka 65 ayay ii noqonaysaa haddii aan argumentiga u gudbo oo aan iraahdo argument okay argumentiga qaybtan labaad oo laga rabo weeyaane argumentiga oo iyana ah z1 z2 argumentigaas wuxuu ila mid noqon doonaa theta 1 oo loo geeyay theta 2 marka theta 1 waxaan hore u soo helnay qaybta halka inoogu qoran ama ah 2. okay 747 ayaan soo helnay marka waxaan u geynaynaa qaybtan labaad wixii aan soo helno iyana ah 2. okay waa qaybtan labaad weeyaane 2.4 okay 9 marka labadaas qiimo aan isu geynaynaa markaan isu geyno argumentiga wuxuu inoo noqon marka argumentiga labada qaybood isu geyntooda waxaa ii soo baxaya 2.747 oo qaybtan hore markaan u geeyo qaybta dambe oo ah 2.498 waxaa ii soo baxaya 5.245 ayaa ii soo baxaya argumentigii marka su-aasha labadii qaybood oo la iga rabay sidaas ayaan iyana kusoo helnay oo aan ku heli karnaa marka haddii aan doono complex numberka waan samayn karnaa oo complex numberka labadan z ay leeyihiin isku dhufashadooda wuxuu noqon doonaa z1 oo lagu dhuftay z2 marka complex numberkooda wuxuu noqon lahaa r1 oo lagu dhuftay r2 oo iyada aan soo helayba cos theta 1 oo loo geeyay theta 2 oo iyana aan soo helnay plus I sin theta 1 loo geeyay theta 2 iyana marka qaybtaas haddii aan sii wadno halka kan waxay noqon doontaa r1 lagu dhuftay r2 waxaan soo helnay 65 marka tiitooyinka isu geyntoodana waxaan soo helnay cos waxaan soo helnay 5.245 ayaan soo helnay plus I sin ayana waxay noqon doontaa 5.245 okay sidaas ayaa ii soo baxaysa marka complex numberka haddii aan u gudbo divisionka ayaa halka kan inoogu qoran marka iyana si kooban aan u sheegaynaa oo marka aan laba polar form isu qaybinahay sidaan ayaa inoo soo baxaysa oo ah in dabcan aararkooda aan isu qaybino ama moduluskooda aan ishoos dhigno isu qaybino xaglaha ay labadooda wataana inaan kala goyno marka haddaysan u qorneen polar formna waa inaan polar form ka dhignaa
okay meesha aan uga gudbo tusaalaha kan marka waxaan haysanaa labadii complex number waxaa la inaga rabaa marka shaqadii isu qaybinta marna inaan horumarino z1 divided by z2 marka kalena aan sameeyno z2 divided by z1 inaan sidaas sameeyno marka qaybta koowaad hadii aan ku horumarno oo ah z1 divided by z2 hadaan qaybta ku horumarno ararkooda waa inaan isu qaybinaa marka kan koowaadna aan sareeyo ka dhignaa marka waxuu noqon doonaa 5/9 into cos xaglahoodana waa inaan kala jarnaa marka labada xaglood waa inaan kala jarnaa annagoo by over 2 ga horumarinayna minus by over 3 na oranayna marka plus I sin ayadana sidoo kale labadii xaglood kala jarkooda by over 2 minus by over 3 kaasiyaas ayay inoo noqonaysaa marka 5/9 into cos marka qaybtan LCM kooda hadii aan qaadano 6 ayuu noqon doonaa marka aan 6 kor ku dhufanana qaybta ee aan u qaybino 2 wixii soo baxana aan kor ku dhufano waxay inoo noqonaysaa marka 3/- -2/, sidaas ayay qaybta inoo noqonaysaa plus I sin ayadana sidoo kale 3/- -2/, over 6 marka okay 5/9 into cos marka xaglahan qaybtan hore markaan kala jarno by over 6 ayay noqon doontaa plus okay by over 6 plus I sin into by over 6 okay ka intaa qoyska ayaan isaga xirinaa kan waa z marka uu koreeyo wanka haddii aan sareeyo ka dhigno z2 ga waxay noqon doontaa un isweedaar marka r2 ayaan markaan horumarinaynaa oo 9 ka ah waxay noqon doonaa marka 9/5 okay ayuu ii noqon doonaa labada r isu qaybintooda labada xagloodna waa kala goynaynaa inagoo horumarinayna xagasha zada labaad oo ah by over 3 minus by over 2 plus I sin by over 3 minus by over 2 saasaan oranaynaa marka 9 divided by 5 halkan waxaa ii soo bixi doona cos markaan sameyno qiimihii hore unbaa soo baxaya laakiin marka kan waa negative way marka toodaa soo horumaraysa qiimo minus oo ii noqon doona marka by over 6 okay plus I sin into negative by over 6 marka labadii saas ay noqon doontaa 9 divided by 5 okay coska negative-ka waxba uma geysto marka sin-kana banaanku keensan doonaa marka waxay ii noqonaysaa halka ka minus I sin by over 6 isagana waa inaan intaa nidhahaa marka qaybta tan intaas ayay inooga dhan tahay marka isu qaybinta ah halka kan waxaan ku haysanaa laba complex number oo qaybtii isu qaybintii labaad ah waan sameynay marka halka kan exercise ay noogu xusan dabcan isu qaybintii ayay la xiriirtaa marka iyo isku dhufashadii waxaan rajaynayaa in si wacan looga shaqeeyo oo qof walba uu isku dayo darsigan kan xigay ilaa aan ka gaaraynana sidaa iyo nabadgelyo ardayay aqoontu waa sidii ilays waa sida aroortiyo ogta waa barkee